dad dhibanayaal ah baan nahay dadkoodii la laayay ilaa saacadda tanna annagu waxaan arkaynaa oo meesha hortayada aan mid u naqaanaa dadkaas dadkayagii dilay eheladoodii baan naqaanaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن لما أصحابت قيمها إجمدن ملك استو أدونك أكجوكتان سوال باي داونسان يولي بساعات كستقعد داونسان ولكن عبد الله مع الحسين وعلى بايدن كلسوها الله شانل كان قروح ذا قوس كتور والله ليال إنك استو بريهان أنكلا مشغولني عندنا الحمد لله دب أيام سقوس الله بني وذي ما علنا قابك أنا الله سعتان مر والبابا ما أنت وح ستة وصوهاد لي مركي أرنتو أرنسو دافتي arintu markay arin soo dhaaftay sida aanu la socono bishii afraad 10keedii waxa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ka dhacay kufsi gabar uur leh oo markaa gurigeedii intii maalin cadeey lagu galay lagu kufsaday isla markaasina lagu dilay warka ma sii dhardheereenayo maanta warka ma sii dhardheereenayo horeyna wiilashan way u hadleen wiilkii qabay gabadhaas Hodan Axmed iyo walaalkeed hadda ka horna fiidiyowgooda waa idin la wadaagay markaa idin la wadaagay kadib waxa hadlay xafiiska xeer ilaalinta waxayna sheegeen in kiiskaas under process uu yahay oo process uu ku jiro isla markaasina mar dhow ay shaacin doonaan halka xaaladdu ay marayso kadibna waxa hadlay oo muddo had isbuuc laga joogo xeer ilaaliyaha guud oo kiiska ka hadlay oo yiri isbuucan bilowgiisa isbuuca soo dhaafnay dhamaadkiisa ama isbuucan balaamanaya oo jumco bari ay tahay bilowgeeda waxa soo cadaanaya DNA-gii la qaaday oo wadanka Kenya loo diray ayaan jawaabtii rasmiga ahayd ka helanaa gabadhaas horta waa ku daasay waa dhimatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto jannatul firdawsana Allah ka waraabiyo waa gacan ka xaq daran baa dishay laakiin dibka waxa uu ka taagan yahay horta fiidiyowada idin la wadaagaya waxa idin la wadaagaya wiilkii qabay Hodan Axmed Maxamed iyo walaalkeed baan horta muuqaalkooda raba inaan idin la wadaago kadibna anaga isku soo laabano oo markaan waxa is dhiileen aan is dhahno biidnillahi kareem dil iyo kufsi la isugu daray oo fool xun oo ka dhacay magaalada Garowe caasimadda Puntland bishii afraad 10keedii xilligaas oo laga joogo 5 bilood iyo 9 casho maanta oo taariikhdu marayso bishii 9aad 19keedii kiiskaas oo ahaa dil iyo kufsi si xun lagu kacay qurgooya ahayna gabar hooyo ah oo caruur leh oo joogta gurigeedii duhurkii maalin lagu soo dhacay ilaa ay haddana ay sahleen wax cadaalad ah ayaana waxaan rabnaa sababta ay 5 bilood gabadhaas cadaalad u weyday in maanta naloo sheego waxa kale oo jira dhagarqabayaashii dilay gabadhaas hooyada ay caruurta leh oo dilka foosha xun u geystay kufsiga iyo qurgooyada inay 24 saac gudahood ay ku jireen gacanta amniga oo la soo qaftay ilaa ay haddana wax maxkamadda la keenin wax sharciyan la hor keenin ayna ku xirayeen jeelka weyn Garowe sida darteed maanta waxaan u nimi bal inaan ogaano waxyaalaha uu xaniman yahay kiiskaas gabadha Hodana ee cadaalad u heli weyday magacaygu waa Faarax Axmed Maxamed Faarax shalay sano weeye waxaan halkaan maanta saxaafadda u soo bandhigaynaa kiiskii Hodan Axmed Maxamed Hodan shalay sano oo bishii afraad 10keedii lagu dilay caasimadda Puntland ee Garowe waxaan nahay dadkii caailadeeda ahaa oo eheladeeda ahaa kiiskaas oo bishii afraad 10keedii ka dhacay caasimadda Puntland oo gabadhaas masaakiinta loogu geystay iyadoo gurigeedii joogta oo qof uur la ah oo qof gurigeedii jiifta ah ay dad dambiilayaal ay ku dileen gurigeedii duurkii intay ugu soo dhaceen duurkii ku dileen oo si fool xun loo dilay baan saxaafadda la wadaagaynaa annagu haddaan gabadha eheladeedii iyo walaalaheeda caailadeeda aan nahay dawladda Puntland waxaan ka filahaynay in ay kiiskaas maadaama madaxtooyadii oo caasimadii kiiskaas uu ka dhacay kiiska foosha xun uu ka dhacay in ay tallaabo adag ay ka qaado dad dhibanayaal ah baan nahay dadkoodii la laayay ilaa saacadda tanna annagu waxaan arkaynaa oo meesha hortayada aan mid u naqaanaa dadkaas dadkayagii dilay eheladoodii baan naqaanaa in aan wax samayno gacantayaduna wax waa goysaa in aan wax samayno waa ka gaabsanay annaga oo uga gaabsanay nabadgelyada Puntland iyo dadka shacabka ah oo in la ilaaliyo mudan
annagu intaa waa isxajinaynay waa dadaalaynay waxaan ka codsanahaynaa dawladda Puntland dadkii nagu sameeyay falka foosha xun oo dadka iyaga ku laayay cadaaladda in loo keeno baan codsanahaynaa annaga codsiga iyagu intaa weeye 5 bilood baa waxaana la yiri DNA baa la qaaday oo maqan ilaa iyo saacadan wax uu maqan yahay dawladdu nooma xaqiijin waxaan adduun weynaha ka codsanaynaa oo dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa oo dawladda Puntland ka codsanaynaa oo xaquuqul insaanka dadka u dooda ka codsanaynaa iyo qaramada midoobay ka codsanaynaa in kiiskaas dadkii galay oo maanta jeelasha Puntland ku xiran cadaaladda loo soo hortaago waa tahay fiidiyowga waa daawateen bay ila tahay walaalayaal sida aanu la soconno hodan ma ahan gabadhii ugu horreysay oo la kufsado si qaab daran loo dilay laakiin sibay kaga duwan tahay oo ayadu waxay ahayd marwo ninka odayga ah ee ayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u saqiray inay u dhaxdo waxa loo geystay 3 arrimood gurigiisa oo lagu soo duulay xaaskiisa oo la dilay ilmihii caloosha ku jiray oo la dilay cirdigiisa iyo sharaftiisa oo lagu xadgudbay walina markaa waa dul qaadanaya asagoo markaa awoodo inuu macnaha waxa weeyaan tilaabo kasta oo ku haboon u sameeyo maanta ma sahlana nin Soomaaliya jooga inta gurigiisa loo soo dhacay xaaskiisii uu qabay oo uur lahayd inta lagu dhax kufsaday isla gurigeedii lagu dhax dilay macnaha waa tilaabo kasta inuu qaadi karo waa laga filan karaa ma sahlana ninka noocaas oo kala dulqaadkiisa inuu saas u badnaado laakiin waa nin ka dhur sugayay cadaaladda maamulka Puntland iyo waxay markaasi ay u saqiraan ama ay u qabtaan bishii afraad buu dhacay kufsiga bishii afraad 10keedii ayuu dhacay farqiga u dhaxeeyna waa dareemi kartaan bishii 9aad baa dhamaanayso hadda bishii 9aad ayaa gabagaba oo dhamaanayso inta farqa u dhaxeeyna waa dareemi kartaan marka waxa la oran karaa kiiskaasi hadiiba nimankii inta la qabtay la xiray yihiin oo 4 bilood ay iska xiran yihiin oo ayaga laftirkoodu ay cadaalad u baahan yihiin oo qofka markii la soo qabto muddo 24 saac gudaheeda in maxkamad lagu keenay ay ahayd oo sida hadda ay sheegayeen nimanka odayaasha aana wax maxkamadda la keenin ayada laftirkoodu waa hagardaamo lagu waday kiiskii gabadhaas hodan ee walaasheena oo markaasi gurigeeda inta loogu soo galay lagu dhax kufsaday oo lagu dilay waa waxyaalaha dabcan loo baahan yahay in laga dhidhiyo markaasi shacabka Soomaaliyeed ay ka istaagaan waxa soo kale to waxyaalaha aan loo dul qaadan karin walaalayaal dawladdu iyo waliba maxkamaddu iyo xeer ilaalintu dhamaantood way ka gaabiyeen kiiskaas waxaana ka codsanaynaa insha Allah ta'ala in kiiskaas sida ugu dhaqsiyaha badan ee macnaha waxa weeyaan loo galo oo gabadha cadaaladeeda ay u hesho cadaaladeeda in gabadha ay hesho oo maamulka ay ka sugayaan ay ka hesho ayaan ka rajaynaynaa ma sahlana in maanta lagu xadgudbo sharaftiisii iyo cirdigiisii lagu xadgudbay wax sahlan ma aha tilaabadii ku haboon buu qaadi karayaa laakiin waa nin sugaya cadaaladda iyo waliba sharciga sugaya way sida idinkaga muuqato waa nin aad u degan waa nin macnaha waxa weeyaan aanan fududeen qaabku u hadlayna qaab caay ah ama aflagaada ma aanay ahayn waa nin raadinaya xaqiisa iyo xuquuqdii uu lahaa gabadhan dalba caruur bay lahayd uur bay lahayd gurigeeda lagu kufsaday waa lagu dilay nimankii la soo qabay waa la xiray sababta marka maxkamadda loo keeni laayahay oo cadaaladii ay gabadhaas u lahayd nimankaasi looga gudi laayahay maxay tahay waa isla wada ognahay waxaan hadda sheegaynaa ma aha soo marka waxaan rajaynaynaa arrintaas shacabka Soomaaliyeed inay ka istaagaan inay ka istaagaan in aanan laga aamusin in aan indhaha laga qabsan in aan afka laga qabsan in aan indhaha kaliya laga fiirsan waan ognahay maanta maamuladannadu qaabka u shaqeeyaan systemyada u shaqeeyaan waa la soconaa ayadoo noocaas ay tahay oo sida aan ula soconno ayaa waxaan ka rajaynaynaa in cadaaladda qof walba oo la dhibaateeyay oo helo maxaa marka gabdhaheena Soomaaliyeed maanta u yaal maxaa maanta u yaal anagoo og gabdho fara badan oo la kufsaday la dhibaateeyay arrimaha noocaas oo kale loo geystay nimankii kufsaday ayagoo dhaxda u wada dhuuqsan tahay oo aanay ka qasnayn ay magaalada dhinaca ka marayaan arrimahaasuna ay sababayaan oo ay macnaha waxa weeyaan u gogol xaarayaan niman odayaal ah oo kaaba qabiilayaal ah oo ugaasi iyo cuqaale iyo sheeganayo salaadiin sheeganaya ay gogol xaarayaan oo maanta xitaa waxa la leeyahay odayaashu hadduu hal wiil uu gabar kufsado waxa lagu leeyahay war hal wiil maxaa hal qabiil aan lacag ka qaadan karnaa war gabadha 10 ha lagu kufsado warar noocaas jira waana idin la wadaagi doonaa bil xaqiiqati
war noocaasa ayaa jiro war gabadha markaa kufsanaysaan 5 iyo 6 ku kufsada sida 5 iyo 6 qabiil aan lacag uga cunubo odaygu maanta taagan yahay xaaladaas maanta maraya marka xaalad dal nooca maraya ma kula tahay in gabar Soomaaliyeed xuquuqdeeda ay ku helayso ma muuqato in gabar Soomaaliyeed meel noocaas oo kale ay xuquuqdeeda ku helaysaay ma muuqato laakiin anagu ka aamusmeeno kamana samreeno in xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed aan mar walba raadino iyo qof kasta oo dhibanaa anagoo markaasi fariin ahaan ugu direeno cidda arintaas ay qusayso si markaasi looga salgaaro oo marka ay qof walbaaba uu u helo jidkii ku haboona adinka shacabka Soomaaliyeedna waa in meel walbaaba arintan lagu soo qoraa waa in sida macnaha looga xun yahay loo muujiyo walaalayaal wallahi wax loo dul qaadan karo ama laga aamusi karo toona ma ahan arintaani soo waxa garteen ma insha Allah ta'ala mawduucaas yar ayaan rabay inaan idin la wadaago isla markaasina aad la socodsiiyo gabadhii hodan Axmed Maxamed ahayd oo lagu kufsaday Garawe bishii 14keeda ilaa ay hadeertaan nimankii aan maxkamad loo soo saarin cadaalad aan loo marsiinin la leeyahay nimankii waa la iska xirayeen xitaa inay xiriyihiin baanan macnaha waxa weeyaan aan la hubin laakiin laga yaabo dadkii lagu maaweelin nimanka inay xiran yihiin baa wali arinteedii ay taagan tahay isdaba jiidaysa anagu marka cadaalad kala raadinayna wax kala ayaaba sugeynay noocaaba haday xaaladu tahay de waxa weeyaan walaalayaal waxaan qaban karno malahan laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagama qoosto baryadiisa iyo naxariisiisa lagama qoosto gabadha waxaan rajaynaynaa biidin Ilaahi al-Karim cadaalad inay hesho sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynaha Puntland madaxweyne ku xigeenka wasiirada iyo xubnaha baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal waxaanu ka rajaynaynaa arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan inay u soo farageliyaan isla markaasina ay gabadha cadaaladeeda u raadiyaan nimanka dhibaatada u geystay ee waxa weeye lagu soo eedeeyay gabadha inay nooca u galeen dileen oo kufsadeen ayadoo xaamilo uur leh gurigeedana joogto laba caruurna ku haysato nooca loogu galay wax indhaha laga fiirsan kara ma aha wax laga aamusin karana ma aha arintaas maamulka ayaan ka sugaynaa insha Allah ta'ala warka ugu farxada badan in uu maalmaha soo socdo uu ka soo bixi doono haduu Ilaahay yiraahdo walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen update-ka yar ayaan rabay inaan idin ka dabageeyo insha Allah ta'ala intaynu kan lamida dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh